السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بل سوريسا adigoo ku jira dalxiis misna degay hotel caalami ah oo ku yaala mid kamid ah wadamada ugu heerka sareeya Yurub habeen saqdhexe kadib adigoo hurda in wax ay lugta ka soo jiideen misna sariirta laga soo tuuray hadii aad nalkii shidayna qof uusan qolka dhex taagnayn oo aad keligaaga tahay ama suurayso in adigoo guriga kula ciyaaraya canugaaga yar misna aad keligiina tihiin in aad guriga ku dhex aragto qof leh muuqaal aad ka fajacdo oo ciyaarta idin la ciyaaraya muuqaalkan waxaan kugula wadaagayaa dad qolalkooda ku dhex arkay wax aad uga fajiciyay misna ilaa hadeer noloshoodan ka dabharin mugdina galiyay hor intaan muuqaalka u guda galin waxaan rabaa inaan idinkaga mahadceliyo taageerada wacan ee aad noo muujiseen waxaan go'aansaday marka 100,000 aan gaarno inaan hadiyad idinkaga dhigo qiso dhab ah oo ka dhacday magaalada Muqdisho oo ku saabsan wiil dhalinyar ah oo isku dayay in uu la haasaabo misna guursado gabar jin ah iyo wixii ka raacay habeenkii uu la kulmay rumayso waa sheeko aad ku cajibin doonta hadii aad jeclaan lahayd inaad si dhaqsi leh ku daawato sheekadaasi la wadaag asxaabtaada si ay kanaalka uga mid noqdaan 100,000 aan ciyo u xirno aan guda galno muuqaalka Brian wuxuu aad u jeclaa waxyaabaha cabsida badan iyo sheekooyinka horarka ah inta badan yaraantiisa wuxuu ku qaatay daawashada filmaanta noocaas ah xitaa mararka qaar isaga iyo asxaabtiisa waxay tagi jireen meelaha qabuuraha iyo meelaha cidlada iyagoo raadinaya yacni ruuxaan iyo wix lamida balse marna ma uusan aaminsanayn jiritaanka ruuxaan iyo jin wax niyadeeda ka dhaadhacay ma ahayn ayuu leeyahay mar uu jiray da'da 15 sano reerkiisa waxay dalxiis u aadeen magaalada Itaaliya ee dalka Jarmalka durbadiiba ay halka tageen waxay ku degteen hotel kamid ah hoteelada magaaladaasi aabihii iyo hooyadiisa waxay ijaarteen hal qol labada gabdhe isaga la dhashayna qolka waalidiintooda ku dhagnaa ayay nasiib u heleen balse Brian kaligiisa wuxuu degay qol ku yeelay qaybta dambe ee hoolkaasi marka furayaashii gacanta laga saaray oo ay aadeen dhanka qolalkooda ay ku yeeleen Brian wuxuu leeyahay durbadiiba markaan nimi hoolkii uu ku yeelay qolalkeena ma garanayo balse waxaan dareemay shucuur aad u xun iyo in meeshan ay wax ka qaldan yihiin balse isla markiiba wuxuu iska dhaadhiciyay waa iska wax aad adiga suureysatay oo wax weyn kama soo qaadin sidii ayuuna isaga ilaabay habeenkii ayaa la gaaray qof kastaana wuxuu dhexda ka soo xirtay qolkiisa sida caadada ahaydba xogaa yar kadib Brian wuu iska seexday wax weyn oo dhacay ma jirin habeenkaasi ilaa marka laga reebo in dhowr jeer uu ka soo kacay hurdada isagoon ogeyn sababka ka kicinaya almuhiim waxa la gaaray subaxii wuxuuna soo aaday dhanka reerkiisa si ay u wada quraacdaan marka ay quraacdii dhex marayaan ayaa walaashiisa reerka u sheegtay sida ay dareentay shalay marka ay hoolka qolalkooda ku yeelay tageen isla sidii uu Brian dareemay ay iyadana dareentay Brian markan aad ay u yara cabsaday maadaama dareenkaasi uusan dareemin kaligiisa kaaga sii daran walaashiisa qof weyn ay ahayd markaasi يعني qof wax isku qaldayo ma keen almuhiim afka uu iska qabsaday oo wuxuu u dareemay reerkiisa uma sheegin waxa la gaaray habeenkii labaad sidii caadada ahaydba qof kasta wuxuu aaday qolkiisa si uu u seexdo Brian wuxuu yimid qolkiisa isagoo bilaabay in daaqadaha uu si fiican isaga xiro sidoo kale albaabkiina uu hubiyo si fiican inuu u xiran yahay marka wax waliba uu iska hubiyay ayuu seexday wuxuu hurdaaba mar 8 saac habeenimo loo sii dhow yahay ayaa hal mar wuxuu ka warhelay wax awood badan oo go'i uu hubsanaa ka dulqaaday isla markii uu indhaha kala furay wuxuu ka warhelay gacan aad u awood badan oo inta lugta kaga soo dhigtay si xun sariirta looga soo jiiday albaabka agtiisana lagu tuuray marka hore wuxuu islahaa qof ayaa qolka ku soo galay maadaama markuu indhaha kala furayay uu arkay maag mugdi ah oo shabaha qof waliba rag ah balse markii uu daaray nalka qaracan dartii wadnaha ayaa istaagi gaaray wuxuu arka ma lahan cidna meesha ma taagan wuxuu u cararay dhanka daaqada hadii uu baegay waa sideedii markii uu xirayay haddana albaabkii ayuu eegay asna waa sidiisii uu xiran yahay habeenkii oo idil indho isma saarin ilaa waagii uu ka bariyo markii ay reerkiisa wada imaadeen si ay u wada quraacdaan ayaa haddana walaashiisii kala tiri xalay mar saqdhexe kadib oo aan hurdo ka soo kacay waxaan arkay humaag qof qolkeena dhex taagan inta aan naxay ayaan nalka daaray balse qofna ma arag oo cidlo ayay ahayd Brian naxdin dartii afkiisa wuu celin waayay isagoo u sheegay wax waliba reerkiisa laga soo bilaabo dareenkii xumaa ee uu dareemay maalinkii ay hoolka imaanayeen ilaa dhacdadii xalay qabsatay isla maalinkii ayayna ka soo tageen hotelkii mar dambe wax sidaas oo kale ma uusan arag balse ilaa hadda imaankiisii kama bixin oo marar badan ayuu riyooyin noocaas oo kale la kulmaa Emily waxay inta badan wiilkeeda Benjamin oo 4 jir ah la ciyaari jirtay ciyaarta dhuudhuuma show hadii aad hore u soo ciyaartay dabcan waad ogtahay sida ay u xiiso badan tahay ciyaartan Emily iyo wiilkeeda aad bay uga heli jireen maadaama inta badan guriga ay kaligooda joogaan wax kale oo ay qabtaan aynan jirin si ciyaartan ay u dheelaan waxay sameysteen shuruuciyo sida in Emily oo kaliya ay dhuumanayso halka wiilkeeda yar uu raadinayo
labo marka Emily ay dhuumato xogaana ay ku jirto meeshii ay ku dhuumatay waxay kor ugu qaylinaysaa yahoo si canugeeda ay ugu fududeyso inuu helo haddii kale waaba canug yar oo mahelayo saddex markuu imaado meesha ay ku dhuumanaysa agteeda hal gacan mise lug ayay banaanka usoo bixinaysaa inta badan marka lugteeda ama gacanteeda uu arko asigoo qoslaya ayuu dhihi jiray lugtaada ayaan arkaa maalin maalmaha ka mid ah sida caadada ahaydba Emily iyo canugeeda waxay bilaabeen inay ciyaartooda dheelaan muddo markay ciyaartii dheeleen misna Emily ay damacday inay yara nastaan oo intaan ayaa idinkuga filan ay isleedahay ayaa canugeedii ku dhagay asagoo leh hooyo mar kale dhuumo Emily ayaa durbadiiba la soo booday waa xilligii nasiinada waa bes oo intaan ha nagu filnaato balse canugii yaraa kama yeelin isagoo bilaabay in uu baryo hooyo no uu ku baryaa waad iska ogtahay qalbiga hooyo inta canugii codsigiisa ay u diidi weeday ayuu ku tiri waayahay balse hal ciyaar oo keliya orod madbaqa tag tiriskiina bilow Benjamin durbadiiba wuxuu ku cararay kushinkii isagoo bilaabay tiriskii 1 2 3 Emily ayadana waxay ku carartay dhanka qolka fadhiga ama living roomka si ay u dhuumato marka qolkii ay soo gashay durbadiiba waxay indhaheedii ku soo dhacay armaajo ay go'yaasha ku xariisan jirtay inta albaabkii ay furtay ay dalaq tiri inkastoo xogaha ciriiri ay ahayd haddana waxay ahayd meel ku fiican in lagu dhunto Benjaminna si fudud uusan u soo heli karin durbadiiba waxay iskala soo baxday mobilkeeda iyadoo bilowday inay isku maawiiliso wax yar kadib dhawaaqa cagihiisa ayaa dhigaheeda ku soo dhacay wuxuu u muuqday in dhanka qolka qadada uu ka raadinayo xogaha yar ay u sii sugtay deedna inta albaabkii armaajada si tartiib ah u furtay ayay tiri yahoo isla markiiba wuxuu soo raacay codkeeda si fiican ayay markaan u maqshay qosolkiisa balse dhanka armaajada ma uusan soo aadin hal mar ayuu jaranjaradii guriga ku orday isagoo isleh qaybta kore ee guriga ayay kaga dhuumatay wuxuu bilaabay inuu dhaho hooyo ku aaway Emily shib ayay ka tiri iyadoo hoos ka qoslaysa balse hal mar ayaa qaybta kore ee guriga waxaa ka yeeray cod yar fasiix ah oo ay si fiican u maqashay yahoo naxdin darteed ayaa xaadi oo dhan istaagtay neeftoona ciriiri ku noqotay yaa waayo qofkan waayo ayada iyo Benjamin oo kaligeed ayaa guriga jooga iyadoo meesheedii ka dhaqaaqi la naxdin dartii ayay ku qaylisay Benjamin waxay maqashaa dhawaaqa cagaha Benjamin oo qaybta kore ee guriga iskaga ordaya isagoo waliba iska qoslaya wuxuuna hal mar si kor u yiri lugahaaga ayaan arkaa hooyo Emily marka ay hadalkaasi sii maqlaysayba xaaladeeda si kale ayay noqotay lugahee ayuu arkaa macquul ma ahan ayada qaybta kore ma saarna lugna banaanka uma bixinin inta armaajadii ay ka soo baxday ayay qeyl afka furatay Benjamin ku aaway halkeed joogtaa markan wax shanqar ah oo ay maqasho ma lahan saantii Benjamin wala qosolkiisii durbadiiba inta jaranjaradii ay ku carartay ayay bilowday raadintiisa waxay ku carartay qolkii martida balse waa eber inta ay ka soo baxday ayay haddana gashay qolkii xigay asna waa eber inta ay haddana soo carartay ayay aaday dhanka qolkeedii jiifka oo markan isaga kaliya u dhinnaa haddii ay batimid waa eber sariirta hoosteeda ka eeg maya waa eber kuma jiro hal mar waxaa dhigaheedii ku soo dhacay hooyo haddii ayba gadaasheeda egtay waa Benjamin oo dhex taagan suuliga ku dhaxiyay qolka jiifka hal mar ayaa culeyskii oo dhan ka degay waxayna u carartay dhankiisa iyadoo laabta gelisay bisna soo xambaartay waxay dareemaysaa cabsida wadnihiisa oo dhan gilgilisay indhihiisuna waxaa ka muuqda cabsi zaa'id ah waxay ka soo bixisay suuliga iyadoo qolka dhanka istaagtay balse markay wajigiisa eegtay waxay dareentay in uusan caadi ahayn indhihiisa iyada sooma eegaynin ee waxay u jeedeen dhanka armaajada dharka ee qolkeeda tiilay marka ay armaajadii eegtay ugu horeen wax weyn oo u muuqday ma lahayn balse si kadis ah ayay hal mar ku aragtay logo ka soo laalaada mid ka mid ah qasnadaha armaajada inta ay qaraacantay ayay hal mar bilowday inay u ordo sida ugu xawlisan ee ay kari karto marka ay kasii deganayso jaranjaradii waxaa dhigaheeda ku soo dhacay dhawaaqa orod saan qofeed oo qaybta kore guriga ka yeeraysa sida in lasoo dababursanayo oo kale iyadoo aad u qaylinaysa ay gurigii ka baxday reer deriska ahna u gashay wax yar kadib waxaa meesha yimid booliiska oo iyagu durbadiiba baaritaan ku sameeyay gurigoo dhan balse nasiib darro waxay ka soo arkeen ma jirin waxayna u ballan qaadeen in agaaraha xaafadeeda ay ilaalin ku sameyn doonaan maalmaha xiga balse Emily sidaasi fudud kuma aaminin booliiska guriga oo idil ayay ka tagtay iyadoo aaday guriga saaxiibadeeda si muddo ay halka isaga soo joogto calal aqal ilaa ay ka soo yar degayso muddo kadib waxay dib ugu soo laabatay gurigii mar walba oo ay indhaha isku qabato waxaa ka soo horbaxa labadii lugood lugo aad moodo in ay yihiin lugaha qof duq ah misna leh suulal xidiyo madow ay ku yaaliin muddo markay joogtay ayaa waxay dib u soo xasuusatay meesha ay ka keentay armaajadii ay ku dhex aragtay lugihii waxaa siiyey nin markaa sheegayay in hooyadiis oo waayeel ah ay dhimatay misna sida ugu dhaqsiyaha badan uu u rabo in alaabteeda uu ku bixiyo sidee ahayd noloshii hooyadiisa
ama sidee ayuu ku dhimatay. haddii aad dhuumasho soo ciyaartay xilli habeen ah waad dareemi kartaa qaraacanka ay leedahay in shay aad ka cabsato aad aragto adigoo qofka ka dhuuntay raadinaya. waxaan rajaynayaa in muuqaalka uu ku cajab geliyay. halkan ayaan kaga baxayaa waa inoo muuqaalka kan xiga. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. amaana allah.